saad aragtaan garoonka Cawaale dhisma ka socda duqi degmada dhalinyaradii sportska dhalinyaradii kala xaafadihii cid aan ka qayb qaadan ma jiro dhismaha garoonka Cawaale ka socota alxamdulillah rabbil caalamiin hawshan waxa noo bilaabmay tiirarka hadda socda waa shubkii lacagtii aan dadweynaha ka aruurnay waxaan ku dirnay roogii iyo kuraastii waxaan hadda aan bilaabaynaa feeskii labaad in laga qayb qaato oo ganacsatada iyo qurbo joogta iyo dhalinyarada iyo cid kasta ay nagala qayb qaataan shaqada hadda dhalinyarada isku xidhiirtay cid u yeertay oo tirkaalay nala shaqeeyay ma jiro nin walba asaga soo dhaqaaqay shaqadiina ka qayb qaatay iska wax u qabsan oo qayb qaatay annaguna waxaan rabnaa jiilka annaga naga dambeeya ama naga sii dambeeya inaan dhahno iska wax u qabsan garoonka ku dhisana qof walba inuu door ku leeyahay oo soo wax ku qaatay oo ku dhistay oo gacantiisa geystay oo soo wax leeyahay buu ogaanayaa aad baan ugu faraxsanahay shaqada si u socoto wixii kalena waa inala soo socodsiinaa maalmo walba live-ka soo galeynaa inaan nagala qayb qaadataan ma rabnaa runtii dhalinyarta iyo gobolka iyo ganacsatada garoonkan looma kala harin haddana waxaan rajaynaynaa inta dadka dhiman iyo ganacsatada dhiman inay ka soo qayb qaataan arrintan muhiim bay u tahay gobolka garoonka ciyaaraha kaliya laguma qabtee salaadaha iidahana waa lagu tukadaa meesha ummadda lagu kulmiye way tahay meesha hadda waa la qurux badan siinayaa waxaa laga dhigayaa garoon caalami ah waxaan looga qayb qaadanayaa xag sportis xag salaad xag walba oo arrimaha bulshada ah marka waxaan rabnaa inaan dadka jecel horumarka inay ka qayb qaataan waxaan u mahadcelinayaa marka ugu horeysa bahda saxaafadda oo ka qayb qaadatay iska wax u qabsada lagu dhisayo garoonka Cawaale Stadium waxa mahad balaarin iskale Ilaahay suurta galiyay in bulshadu ay iska wax u qabso ay fahanto kadibna ay doonayso inay wax ugu qabato garoonka Cawaale Stadium oo ah meelaha ugu qaalisan gobolka Mudug ku yaala gaar ahaan magaalada Gaalkacyo waa bar ay isugu timaado dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed waa meel u siman dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan maanta aan joognaa guul maadaama dhalinyaradii ay fahantay in ay wax kasta ku qabsan karaan iska wax u qabso waxay marayaan meeshii aan dhihi karan waa meeshii ugu fiicnayd waxaan rajaynaynaa in Ilaahay nala garab galo waxaan dhihi lahaa bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasto ay joogto ha ka qayb qaadato tabarucaadka loo hayo Cawaale Stadium Ilaahay baa mahadle waxaan noo socdaa shaqadii aan wadnay muddo 8 bari oo garoonka badda cagta Cawaale shaqadaas oo iska wax u qabsay ku dhisanaysa bulshada reer Gaalkacyood halka u jeedaa dhalinyaradii baa shaqeynaysa gobolka kooxihii kubadda cagta CRB CRA iyo dhalinyarada gobolka sidoo kale qof kasto arintaasi waxa way gacan ka geystana aad iyo aad buu mahadsan yahay shaqadana si fiican bay noogu socotaa waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay idmo muddo 3 bilood inay noogu soo gabagaboobi doonto insha Allah waxaan rajaynayaa garoonkii ugu horeeyay caalami oo Puntland ku yaala inuu noqon doono garoon Gaalkacyo ku yaala insha Allah garoonka Cawaale waxa weeye wuxuu wataa magacii ninkii calanka Soomaaliya curiyay haliyay Soomaaliyeed maxamed Cawaale Liibaan waxa si dardar ah u socota shaqadii iyo dhismihii garoonka Cawaale qorshu yahay in laga dhigo garoon casri ah oo rooga kuraas fiican oo raaxana ay yeelan doona waxa runtii farxad ah oo wax lagu farxaa in iska wax u qabso lagu dhisayo in dhalinyaradii ay dhaqaalihiin aruurinayaan gacantoodina ku dhisanayaan waa runtii wax qof kasta oo waddankan mustaqbal kale oo damiir leh oo ku farxaya weeye istaahilan inuu qof kasta oo Soomaaliya ah wax ku darsado waxaan fariin u dirayaa dadka reer Gaalkacyoodka oo magaalada jooga iyo dadka ka maqan oo qurbaha jira iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed magaaladan Gaalkacyo waa magaalo Soomaaliyeed weeye waxa la rabaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan waxaan leeyahay wax ku darsado dhalinyaradan iska wax u qabsanaysa waa tusaale fiican meeshii dib iyo wax kale ay ka shaqayn jireen ama ay tariibi jireen maanta dhulkooda dhisanayaan idinka waxa la idin rabaa inaad dhiirigelisaan gaar ahaan dadka reer Gaalkacyoodka waxaan leeyahay tartan waxa socda horumarka yaan magaaladiina laga badin waxa la rabaa garoonkaasi inuu bil gudaheeda hadii la haydmo oo ku dhameystirmo wax yar ka dhiman marka dhameystirkiisa kan ka suganaa aad u mahadsantahay